بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay tahay bisha saddexaad sanadka 2022 waxaa shir isugu yimid shirkii toddobaadlaha ee degmooyinka maamulka sare gobolka Banaadir iyo taliyaasha ciidamada kala duwan ee nabadgelyada agaasimayaasha gudoomiyaasha degmooyinka ayadoo shirkaas maanta shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayadoo diiradda si aada loo lafaguray maadaama cudurka safmareenka ah uu dib u soo laba kacleeyay xawlin uu ka socdo ayadoo laga duulayo ayay mas'uuliyiinta waxay qaateen go'aamo la rabo in lagu badbaadiyo shacabka malaayiinta ay ku dhaqan gobolka Banaadir go'aamadaas waxaa laga soo saaray war-saxaafadeedkan ku socoto dhammaan goobaha ganacsiga gobolka Banaadir waa meel walba ganacsi xataa waxaa ku jiri karo transportationka sida bajaajada BLada iyo dhammaan meelaha goobaha la isugu yimaado isboortiga intaba way ku jiri karaan ku socoto waaxda caafimaadka dawladda hoos xamar ku socoto gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir og taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar og taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir og waaxda xiriirka degmooyinka gobolka Banaadir og xogeyaha guud maamulka gobolka Banaadir og gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir og wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ujeedo wargelin sida aad la socotaan waxaa dalka Soomaaliya dib ugu soo laba kacleeyay xanuunka COVID-19 xanuunkaas oo fara kulul ku haya dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku nool gobolka Banaadir haddaba si looga hortago xanuunka oo sii faafayo waxaa dhammaan goobaha ganacsiga sida maqaayadaha carwooyinka bangiyada moolalka hoteelada dukaanada lagu iibiyo cuntada supermarketyada iyo xafiisyada bixiyo adeegyada dadweynaha iyo dhammaan nooc kasta oo goob ganacsi ah waxaa la farayaa in aysan u ogolaan qof aanan haysan afxirasho ama waxa afqalaad lagu yiraahdo face mask in uu ka dugaamaysto goobtooda ganacsi sidoo kale milkiilayaasha goobaha ganacsiga waxaa si gaar ah loo farayaa in ay dhaqan geliyaan awaamiirta la xiriirta xirashada afxirashada ama face maskiga si loo dhowro xanuunka si loogu dhowrsado xanuunka coronaviruska ama COVID-19 oo ku dhex faafo bulshada dhexdooda sidaas daraaddeed waaxda caafimaadka dawladda hoose xamar iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir waxaa iyaga oo waxaa lagu dalbayaa in ay la socdaan dhaqangalka xirashada afxirashada ama face maskiga wabilaahi tawfiiq waxaa ku saxan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish go'aamadana waxay dhaqan gali doonaan markay warbaahinta ay ka baxdo ayaa ma aragtay go'aamadan dhaqan galkooda ay ma aragtay bilaaban doonaan. Assalaamu calaykum.